waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed aan u sheego inay isdejiyaan waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo in ay naga go'an tahay difaaca dalka taaka kamid ah barigeena iyo badeena iyo cirkeena laguma soo xadgudbo waji kasta oo sharci ayaan ku difaacaynaa waxaanan hubaa noo kaashanayna shacabkeena meel kasto ay joogaan haday joogaan waqooyi iyo haday joogaan koonfur iyo hadii ay inta u dhaxayso joogaanba waxaan awoodnaa horeyna u soo awoodnay haddana awoodnaa inaan difaacno dalkeena wax laga cabsada ma yaalo waxaan se rabnaa markaan in la midoobo wax kasta oo Soomaalida dhexdeeda ah in laga tago siyaasad kasta oo inaga dhexdeena iyo waxa inoo dhaxeeyaan meel iska dhigno inaan difaacno dalkeena inaan difaacno qarannimadeena iyo gobonnimadeena taas laga maarmaan ah dadka ku mashquulsan xilligan oo kale waxyaabaha Soomaalida dhexdeeda oo aan micnaha badan lahayn waxaan leenahay xilligan waa markii la midoobi lahaa waa markii halka meel la istaagi lahaa waa markii hal dhinac loo jeesan lahaa waa markii dalka la difaaci lahaa dhammaanteen aanu istaagno in aan difaacno dalkeena xukuumaduna waxa ka go'an inay